Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency President Recep Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mudana madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga ahna gudoomiyaha ururka iskaashiga wadamada Islaamka mudana Dr. Yusuf Al-Uthmani xogayaha guud ee ururka iskaashiga wadamada Islaamka İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, madaxda wafdiyada madaxda sare ee dowladaha mudanayaal iyo marweyn dhammaantiin hamaamuusa kala duwan ee goobjoog ah tüm katılımcılar, tüm aleyküm ve rahmetullah. waxaan jecelahay inaan ku bilaabo inaan u mahadceliyo xukuumadda Turkiga iyo ururka iskaashiga wadamada Islaamka oo si wada jira u soo agaasimay shirkan taariikhiga ah oo waqtiga ku habboonaa jooga sidoo kale waxaan qarsanahay dadaalka weyn ay ku bixinayso xukuumadda Turkiga fududaynta iyo qabsoomidda shirkan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay la go'an tahay wadamada xubnaha ka ah ururkan iskaashiga Islaamka go'aanka Mareykanka ku aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil go'aankaas wuxuu kala qaybsanaan iyo khilaaf ka dhex abuuraya wadamada caalamka Mareykanku waxa u baahan yahay inuu sii joogteeyo doorkiisa nabadeynta bariga weliba nabad la dhex dhigo shacabka Falastiin iyo kan Israa'iil si loo gaaro xal labada dowladood waxaa Mareykanka saaran inuu arrintaas sii wado si loo damaanad qaado mustaqbalka geedi socodka nabadda iyo amniga bariga xukuumadda Soomaaliya iyadoo xubinka ururkan waxay aaminsan tahay dib u cusboonaysiinta dadaalada caalamka ee ku aadan u helidda xal waara oo cadaalad ku dhisnaan doona soona gabagabeeya khilaafka iyadoo la raacayo jiritaanka labada dowladood ee Falastiin iyo Israa'iil oo ku wada nool nabad iyo ammaan ayna aasaas u tahay in la raaco qanuunada caalamka uga degsan geedi socodka nabadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil xukuumaddu uu yahay mid dahan una baahan sabir badan si kastaba ha ahaatee natiijooyinka cadaaladda ku dhisan ee ka dhasha waxay muhiim u tahay in lagu soo hurto lana xurmeeyo qanuunada caalamka u yaala waxay sidoo kale adkeynaysaa ammaanka dunida wada noolaanshaha iyo isfahmeyn ka dhex dhalata diimaha kala duwan sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan ilaalino geedi socodka nabadda innagoo kalsooni ka dhex abuurayna labada dhinac ee aan midna gooni u saarayn bizim destekliyor olmamız lazım. Her iki tarafında güven tesis etmeliyiz ki barış süreci dağılmasın. Uluslararası camia olarak dhanka beesha caalamka waxaan u baahannahay inaan adeegsanno dadaalada xal waara loogu helayo nabadda bariga waxaa jira caqabado laakiin fursadaha ayaa ka badan annagoo ah dal la dagaalamaya argagixisada caalamka kana guulaysta iyagoo fasiraad beena ka bixinaya diinteenna wanaagsan waxaan adduunka u caddaynaynaa inaan loo ogolaanshayaa diinta nabadqasayaasha ah inay sabab u noqdaan qalqalgelinta caalamka prim verilmemesidir. Meydanın onlara bırakılmamasıdır. Sözlerime son verirken teşekkür ediyorum.